xil culus baad na saarteen oo inaanu shaqo badan qabanno muddada ina ku soo fool leh xilkaas aad na saarteen aad baan idinku mahadinaynaa waxaana ku dadaalaynaa insha Allah inaan ka soo dhalaalo oo sidii aad noo saarteen oo aad noogu aaminteen iyo si ka badanba inaanu inta dardar gelino waxa aan samayn lahayn oo dhan inaanu arintaa qabanno waxaan hambaliyada u dirayaa maxamed cabdullaahi jaamac cabdixakiim cabdullaahi guuleed samsam cabdulqafaar iyo intii kale oo dhan oo muxuu ahaa ka soo qayb muxuu ahaa maanta inta la doortay iyaguna oo meesha ku jira waxa sidaan hore u sheegay oo aan u ballan qaaday waxaanu rabnaa inaanu si dhaqso u howlgalno oo aanu dardar badan u gelino sidii aanu uga soo dhalaali lahayn shaqadan culus oo naloo qabtay ama nala saaray xisbigu muxuu ahaa insha Allah dhaqso u soconaya waxaanu sidaan hore u ballan qaadnayba aanu ku ballansanahay inaanu labada toddobaad oo soo socono aanu meelo badan tagno iyo magaalooyinka caalamka ugu waaweyn ama Soomaalidu ugu badan tahay siiba muxuu ahaa Minneapolis London Toronto Seattle iyo Ohio intaba inaanu tagno aanu isu marno inteeda muxuu hadda Mareykanka joogto waxaan u mahad celinayaa dhammaan marti sharaftan ka soo qayb gashay oo aadka u quruxda badan rag iyo dumarba leh haween leh odayaal leh aad baan idinka mahad celinayaa codka sida buuxa aad ii siisaan waxaan rajaynayaa aniga gudoomiyaha koowaad cabdixakiin oo isagana sida wanaagsan halka looga doortay codkiisana aynu maqalay inaanu si wanaagsan ururka bakaal aan ugu wada shaqeyno arrimihiisa oo dhan waxaan rabnaa urur siyaasadeedka bakaal inuu noqdo haddii ilaahay idmo urur waxa weeye guud ahaan reer Puntland ay iska dhex arkaan waa muraayad weyn sida aan shalayba hore inoo ku sheegay waa muraayad weyn oo mustaqbalka reer Puntland oo dhan iska dhex arki doonaan insha Allah ilaahay ayaa hadda iskana inoo suurtageliyay maanta doorashada inay noo dhacdo waxyaabaha hirgelinaya arrimaha asxaabta iyo horumarka iyo bulshada iyo jaha wanaagsan u socoto ayay ka mid tahay marka waxaan mar labaad mar saddexaad aan leeyahay walaalayaal soo dhawaada annagu ururka waa ururkiinii cidna lagama leh qof walba dhinaciisa inuu ka qabto oo ka hagaajiyo oo contributionkiisa iyo taladiisa iyo fikirkiisa geysta ayaa la rabaa wax kastana waxa weeye daacadnimada iyo kalsoonida qofka soo ka timaadaa la rabaa marka hawl fiican baa inoo socotay ilaa shalay